السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي igu cusub kuwa awal ila joogay dhamaantiin soo dhawaada waa mar kale muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxa uga hadli doonaa waxyaabo aad u weyn anfici doono waxyaabahaas waxa kamid ah caruurta aan cuntada cuneynin oo waxaan ugu talagalay jiray 6 bilood ilaa 3 sano waa cabitaan isku dheelatiran ilaa 3 cabitaan oo isku dheelatiran waaye marka waxaan ugu talagalay hooyooyinka aysan caruurta ka cuneynin cuntooyinka biliis haday ku tahay markii koowaad ii timaadid waxaan ka codsanayaa in channelka subscribe aad ii saartid ilaa gareedid awlada ila joogtana waxaad ii saartaa like iyo share gareey like-ta hooyooyin badan waxay ka caawin doontaa in ay arkaan muuqaaladan waayo hooyooyinka aad iyo aad ay ugu baahan yihiin cashiradan had iyo jeer aan soo geliyo oo waxyaabo muhiim u ah anigana wax badan ay iga caawinaysaa like-ta muhiim ayaa u ahay marka like-ta ii saar walaal qaali waxaad soo diyaarsaneedaa 2 qaado oo loos ah looska midka caadiga ah oo loos Soomaaliga ama midka almoonka 2 qaado ah iyo 1 xabo oo moos ah 3 xabo timir ah waxa kale soo diyaarsaneedaa caanaha markaas cunugaaga aad siidid waxa kale soo diyaarsaneedaa yogurtka baleenka ah oo faniilada ku jiro intaas ayaad soo diyaarsanay ka bacdi waxaad sameeyneedaa waxaad dhaqeedaa timirti 3 xabo aada u dhaqee waa nadiifinay laftana waad ka bixinay waxa kale dhaqeedaa looski waxa kale oo dhaqay sabiibka marka hore miyaan igu darin laakiin sabiiba ku jiro sabiib asagana 1 qaado haafkeeda ilaa 1 qaado ilmaha sanadii ka weyn qaado waa caadi 1 qaado uga dhig sanadii ka yaraa cunuga qaadada looska ku iri 2 qaado ka dhig 1 qaado ka dhigo laakiin sanadii ka koreey 2 qaado waa okay marka intaas ayaa si fiican u soo dhaqeedaa looski timirti sabiibki mashiinka wax lagu shiido ama blenderka ayaa ku shubanay waxa ku darsanay caanaha cunugaaga aad siinayday 1 bakeeri waxa kale oo ku darsanay xabad moos ah oo aad u bisil mooska markii uu yeesho dhibcaha uu bisel yellow ah uu noqdo maasha Allah way waxtar badan ayuu ilmaha u leeyahay waa ku darsanay waxa kale oo ku darsanayda yogurtka baleenka ah oo faniilada ku jiro intaas si fiican isugu shiidaysa marka isku shiidid ilmahaaga hadii ka yar yihiin sanad wax sokor ah ama wax malab ah uga darin sanad hadii jiraan waa okay waa caadi in aad ku dartid malab ah ama wax yar oo sokor ah waa iska normal in aad ugu dartid ka bacdi si fiican ayaad u shiidaysaa ilaa ay ka noqdaan wax isku dheelatirmay ama alaab cajiib ay kaaga soo baxdo ka bacdi waxaad sameeyneedaa waxaad soo qaadaneedaa shabaq wax lagu miiro midka aadka u yaryar oo ilmaha waxyaabaha aan dhibeynin uga soo bixeenin macnaha ilmo waxa jiraan carabkooda wax yar oo haday ku dhagaan oo soo raacayo waxba aan ka cabeenino marka horeba kugu soo tuuray masaasada ilmaha sida sadeeyihiin oo marka hore aad barin cuntada la ridqo ama cuntada loo jijibi aad barin waxaad sameeydaa aad uga miir ka bacdi waxaad sameeydaa masaasadiisa ugu shub haduu masaasad uu si kaaga cabeenin waxaad sameeydaa aad ugu shubtaa bakeeri ama galaas ka bacdi waxa u gelisaa stroog lagu nuugo ama lagu dhuuqo waxyaabaha stroogaas waxyaabo badan oo wuxuu ka caawinayaa caruurta u sahli doono in ay ka cabaan cabitaanka waa tubada yar oo ilmaha wax loo suro marka intaas ayuu horta ku egyahay fiidiyoogii koowaad aan ugu talagalay hooyooyinka cabitaanaadka caruurta ay siinayaan waxaan guda galeynaa kii labaad midka labaad waxa soo diyaarsaneedaa strawberry 6 xabo oo strawberry ah si fiican ayaad u soo dhaqeedaa waxa kale oo soo diyaarsaneedaa moos aad u bisil waxa kale oo soo diyaarsanee timir 3 xabo iyo yogurt caanana waa soo diyaarsay caanihii cunuga wax ugu sameeyneeday mar walba oo cabitaanka aad caano ku sameeyid waa mar walba faadka ku jiro uu aad isugu dheelatirmo intaas ayaa si fiican isugu shiidaysaa ilmahaaga hadii sida hore kuugu soo sheegay sanad ay jiraan malab yar ama sokor yar oo ugu darsan kartaa laakiin hadii ka yaryihiin sanad wax sokor ah ama malab ah isaga taabanin intiisaas ku siiso uu macaan badan yahay una qabooji wax yar oo qabooba uga dhig ama talaajada u gali ama wax yar oo baraf ugu dar
cabitaankan iyo kii horeba aad u weyn wuxuu u dhisaa ilmaha lafahooda, wuxuu kaleeto isku dheelitiraa ilmaha systemka koriimadooda, maskaxdooda wuxuu ka dhigaa maskax firfircoon. Ilmahaagana socodka xitaa hadduu ka daahay aad u weyn fitamiino uga caawinayo ayaa ku jiro. Marka hooyooyinka waxaan kula tali lahaa in aad u weyn cabitaanaadka xoog ay u saaraan, caruurtana ay siiyaan maalinkii 2 mar ilaa 3 mar intay ka heli karaan. Mar walba ilmahaaga siidid cabitaan waa mar walba cunugaaga koriimo qurux badan uu kuu koro, waayo hooyo walba waxay jeceshahay cunugeeda aad inuu u qurux badnaado jir ahaan iyo maskax ahaan intaba. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaad ku heli kartid waxaa ka mid ah in aad ugu dadaashid ilmahaaga waxyaabaha caafimaadka u leh oo had iyo jeer aad siisi kartid waxyaabaha caafimaadka ilmahaaga ay ka heli karaan. Marka hooyooyinka sidaas ayaa u wacan inay sameeyaan, iyo wax kasta ay isdhihi karaan ilmihiina dhibaato kuma ahan in ay ugu dadaalaan. Ilmaha waa la ogyahay cuntooyinka way diidaan, cabitaanaadka qaar kuran oo waxaa jiro cabitaanka maasha Allah tabaaraka raxmaan aad u cabaayo. Cunugaaga cabitaanka hadduu kuroon yahay ama uu ku cabaayo cuntada qaatir ah uga taagan tahay, fiidiyogan adigu kugu socdaa. Waayo hooyooyin badan waxaa jiraan fiidiyogan codsaday, mar walbana waxaan isku dayaa in codsigeena aan tixgeliyo oo aad u weyn aan tixgeliyo, aan isdhaho waxyaabaha gabdhaha ay ku weydiinayaan ay u bateen soo bandhig, maadaama inta ugu badan ay isku raaceen cabitaanaad noo soo geli ilmaha maxaa ugu tala gashay. aad u weyn ayaan igu soo riyaaqay ama anigu soo dadaalay oo fiidiyogan ayaan soo geliyay, maadaama maanta wax kale aan qorsheysnaay in aan soo geliyo. qorsheygana uu ahaa haddana mar walba bulshada markay kugu xiran tahay waa mar walba ixtiraantid waxyaabaha ay u baahan yihiin u soo geli kartid meesha aad markaas maamulka ka heysid. Marka fiidiyogan kale intaas uu ku egyahay, waxaan guda gelaynaa insha Allah fiidiyogii 3aad aan ugu talagalay cabitaanaadka caafimaadka leh ilmahana aadka ugu wanaagsan. gabdho mar walba ilmihiina aad ugu dadaala insha Allah si ilmihiina ilmo qurux badan ay u noqdaan. cunugaaga markuu aad kuugu qurux badan yahay wallahi niyada kuu dhisan. ilmaha waa aragteen waxyaabo yaryar oo waxaa jiro oo ku dhaco cudurro yaryar oo iska fudud oo ku dhaco mar walba soo laalaabto. waxyaabahaas oo kaleeto waxaa uga taxadari kartaa waxyaabaha aad siinaysid inay noqdaan waxyaabo jirka cunugaaga ama difaaciisa kor u qaadi karo mar walba. waana niiga mahad celinayaa qaabka quruxda badan mar walba su'aalaha ii soo weydiidaan waxyaabaha aad garaweysiin waan iga jawaabaya. laakiin waa fiidiyoga in aad soo fahamtid marka horeeto aad dhageysatid ka bacdina waxyaabaha uu ku saleysan yahay iyo qaabka cashirka uu dhigan yahay, qaabka ilmaha loo siinayo iyo cabirka la siinayo wax walba qiyaasay leeyin iska siima ahan in aad soo dhageysan kartid ka bacdina su'aal aad iga soo weydii kartid hadaa fahamtay. waxa arkaa badana hooyooyin aan sida sameenin oo isla markii soo ordaayo intay wax yar ka soo dhageystaan dib u laabo soo dhageysa cashirka. waxaan guda gelaynaa kii 3aad, midka 3aad aad u weyn cabitaan u wacan ilmahaaga haddii leeyihiin calool adeeg, ilmahaaga haddii leeyihiin mid kaleeto difaac xumo, ilmahaaga haddii leeyihiin borotiin la'aan ay yihiin aad nuxus ay u yihiin, cabitaankan adoo ku anfacaya qaado. maalin kasto waxaan soo geliyaa waxyaabo aad u weyn aan isku iraado aad ay ugu baahan yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed. gabdho badan oo haddana waxaa arka aad u yiraahdo baay waxyaabaha ilmaha miisaan kordhiyo soo geli. war meeshan waxa u furan yahay channelkan waxa waaye mar walba waxyaabo sina soo gelin gadaal u fiiriyo fiidiyoyada qoraalada ku qoran fiiriya waxyaabay ka kooban yihiin fiiriya waa helaysin wixii aad u baahan tahay. waayo markasto waxyaabaha aan jeclahay aniga waxay tahay waxyaabaha ani maskaxdeeda ka guuxayo in aan arko dad soo bandhigay misana waan waayay ka bacdi ilaahaba ii suura geliyay in aniga in badan suureysta inaan soo geliyo haddana aan ii suura gelin. sanadkan ay ii suura gashay sanadkii dhamaaday dhamaadkiisa ama dabayaaqadiisa iyo hadda bishan sanadka cusub inay ii suura gasho waxyaabahan inaan ii soo geliyo aad u weyn aan ugu faraxsanahay. waxaad soo qaadanaydaa babaayga waad soo dhaqay waad fiiqay miraha ka bixinay jeex ka mid ah babaay hal xabo oo moos bisil ah
waxaa kaleeto ku darsaneedaa 3 xabo oo strawberry daaweysay waxaa ku darsaneedaa 3 xabo oo looska almoonka ah ama looska caadiga ah ayaa ku darsanee waxaa kaleeto ku darsaneedaa caano yoogada ku darsanee waad isku shiidanee markaad isku shiidatid oo aad isugu shiidid ilmahaagan 6 bilood haday yihiin ilaa sanad markii hore saa kugu sheega camal sameey wax sokor ah isaga darin laakiin sanad cunugaaga haduu ka koreeyo ilaa 3 sano meelaas uu jiro waa caadi sokor ama qaadama laba ugu dar ka bacdi baraf yar ugu dar ama waa u qaboojine waa u miire kadib cunugaaga waad siinee 3 waqti ayaad siisaneedaa ama 2 waqti ma fahamtiin gabdho mar walba waxyaaban aan soo geliyo waa waxyaabo aan ogahay waxtarkooda aan ogahay hooyo kasta aad inuu u intifaaci doono marka waxaa kaleeto jiray su'aalo badan oo shalay fiidiyooga aan soo galiyay liiga soo weydiiyay gadaal uga jawaabaya insha Allah fiidiyoogan saddexaad horta intaan noogu ekaay cabitaanaadkan tayada sare leh ilmihiina siiyo ku ogaada mar walba waxyaabaha u wanaagsan jirka ilmaha waa cabitaanaadka iyo cuntooyinka isku dheelatiran cabitaan mar hadii laga buuxiyo biyo sida mar walba aan sheego wax uu tiraaya malahan cabitaanka mid seeka ah oo ha noqdo adag ilmahaagan wax u taro biyaha ka jooji bedelka biyaha waxa uga dhigtaa caano u gali ma fahamteen cabitaanada way isqaataan kuwa waxa jiraan biyaha qaadanayo iyo kuwa qaadanaya caanaha marka kuwa caanaha qaadanaya siinbir waxa ku dadaashaan in ilmaha aad siidaan insha Allah kuwa kale waan soo gelinaya haduu rabbi idmo fiidiyo shil aan soo geliyay su'aalaha liiga soo weydiiyay waxa kamid ahaay ilaa mee qamar ayaan maalinka sii karaa caanaha aad soo gelida ama borotiinka aad soo gelida YouTube-ka ilmaheena ilmaha haday jiraan sanad ilaa 4 sano maalinkii 2 mar ayaa la siinayaa fahamta 2 koob oo caanahaas ah biyo qabow oo qasay waad siinay waayo waa nafaqo dhameystiran oo cuntada booskooda ilmaha u gali karo fitamiinaadka ka kooban waxa ku jirta 24 fitamiina ku jiro waa fitamiino isku dheelatiran oo loogu talagalay ilmaha nafaqo la'aanta heeso in ay kor miisaankooda u soo qaadmo 5 sano ilaa 10 sano 3 koob ay maalinkii ilaa habeenkii ay cabi karaan marka sidaas ogaada muuqaalkan intan ayuu ku igyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh